بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kusoo dhawaada madbaxa Muna. maanta waxaan sameynaynaa face mask cusub oo aad ka sameyn kartid waxyaabo aad ku haysatid gurigaaga aad ka helaysid insha Allah. waa 3 face mask oo kala duwan oo 5 daqiiqadood diyaar ku noqonaya tusaya maanta. jir kastana uu ku munaasib yahay, marka jirka qallalan hadda leedahay mid engegan mid qoyan intaba waad ku isticmaali kartaa. waxana kaama dhibayo waayo boorash baan ka sameynaynaa. boorashkuna waa dabiici, waad ogtihiin waa cuntadaasaan cunno. marka marna breakfast, marna beauty, marna qurux waan ku qurxinaynaa, marna quraac baan ka dhiganaynaa. so waa kaas dibadaas ayaan ku ritay. waxaan imika ridqayaa 2 malgacadood oo ah boorashka. 2 malgacadood waaweyn. saad ogtihiin anigu waxaan jeclahay mooyaha iyo tibka inaan wax ku ridqo. fiidiyoyadeedan inta badan waad aragteen. waxyaabaha woodka khashabka ana bambuuga ana waan jeclahay. markaas waxyaabaha madbaxa ugu jeclaha ka mid ah markastaan isheedu ku dhacdan waa ila qurux waxyaabaha bambuuga ah oo khashabka laga sameeyey. marka idinku maxaad isticmaashiin tibka iyo mooyaha ma isjeceshihiin mise mashiinka aad ku ridqatiinoo caalamka casriga la socotiin? هذا doonaysa mashiinka ku ridqataa amba markaan ku ridqaa markaan waqti hayn oo yara degdegayo. laakiin inta kale waxaan iska jeclahay inaan kan ku ridqo. marka way la qabsateen baan filayaa. halka waxaa aragtiin baaquli wood ka samaysan. miisku waa wood khashab. malgacadu waa khashab. waxyaabahaas iska jeclahay. hadid hadda ay soo diraysiin insha Allah. waxyaabahaas kale ay soo dira boosta ay soo dhiga insha Allah. halkeed iga daawanaysiin Soomaali weynow ii sheega insha Allah. ilaahay waxaan ka rajaynaa wadankeena hantiyay macaan waa mid lagu waran ka bax aynu ilaahay wadanka noo hagaajiyo dhamaanteen insha Allah. halkan waxaan ku darayaa 2 malgacadood waaweyn oo malab ah. malabkan waad garanaysiin ilaahay ku yiri suuratu nahl fihi shifaa'un linnaas. marka in la cuno malgacad biyo qabow lagu darsadano hore inii soo tusay iyo maskina ka dhigtay face mask. marka yara walaaqis ugu yara adkaanaya laakiin dib ma laha. hadhowban ama biyo yar ku darina ama liin dhanaan yar ku dari doono arki doontii. si fiican baad u walaaqaysaa insha Allah. wakaas xasuustana walaalayaasheen Falastiin ducada markasta ka ilaawina sujuud kasta salaad kasta ilaahay aakhiro uu weydiinaya maxaad u qabateen walaalihiin baa la oranaya. dadkii awoodi kara waxayna qabtaan maxay qabteen. wakaas imika waxaan ku daraynaa kharquum ama turmeric huruuda iyo liin dhanaan. marka ma doonayo inaan isticmaalo madiibad kala soo saaro oo haddana mar labaad boorashka idin sameeyo waayo ani kaliya marsanaya. marka inaan de israaf sameeyo daadiyo hadhow video inta u sameeyo iska daadiyo ilaahay ma ogola israafka. suuratu acraafna waa ka ilaahay ku sheegay aayadda 13 yaa bani aadama khuduu ziinatakum cinda kulli masjid wakuluu washrabuu walaa tusrifuu. cunoo caba israafkana iska daaya. marka mar raba inaan mar 3 kala duwan inii sameeyo oo idin tuso hadhowna halkaa inta ku xumaadaan aan iska daadiyo oo xabad kaliya ka isticmaala. marka kii weynaa aan sameeyey baan kala qaybinayaa saan ID ama tusaale oon inii tuso oo isfahantiin. boorashka maska kala duwan waxyaabaha kala duwan aad ku dari kartiin. halkan 2 ku kala qaybaysaad aragtiin. marka waxaan ku daraynaa imika turmeric waa khurquum bil carabi waana huruuda horena waan usoo sheegnay faa'iidada leedahay. cuntadan badanaa waa lagu darsadaa. dhaxanta markay jirto iyada iyo sinjibiil haddaad biyo kulul ka cabtidna hargabka ama durayga way ka ilaalinaysaa insha Allah. waidaa maridtu fahuwa yashfiin. ilaahay baa cudurada ilaaliya xanuunada ilaaliya. halkanna waxaan soo qaaday intii kale waxaan ku darayaa liin dhanaan oo vitamin C leh oo antibiotics ah. waxaa laga wadaa bakteeriyaha iyo ayay ka ilaalinaysaa jirka iyo infectionka waxaas. laakiin irritation bay leedahay oo waxa laga yahay qofku inuu cuncun ka qaado ama dhib ka qaado. marka markiiba wajigaaga ha marin meelaha elbowga sensitive-ka ah ku eeg hadday waxba kaa soo gaari waayaan marsada. markaas haddaad aragtiin inuu maasku adag yahay biyo yar oo kulul baad ku dari kartaa. saan kan ugu sameeyey ayala jilcinaya markaasaan marsan doonaa insha Allah. wakaas labadaas waad ila aragteen baan filayaa.
iminkana waxaan soo qadayaa kii saddexaad baan idin tusi doonaa insha allah. haddana laba magacadood oo waaweyn baan ridqayaa sidii in leeg. waxaan ii waday Falastiin insha allah in loo duceeyo. anagu maxaan u qaban karnaa dadkeenan caadiga shacbiga, maxaan u qaban karnaa? waan u ducayn karnaa. lacag sadaqa haddii la dirayo waan insha allah u diraynaa. iska ilaalinaya, waxaa jirta dadka dhaco dhaha Falastiin baan u diraynaa, waan u dirin. marka waa inaad hubisaa meeshaad u diraysa inay sax tahay. waxaan kaloo samayn karnaa insha allah ducada iyo tiridda inaan share garayno Instagramka, Snapchatka, Facebooka, meeshii aan awoodno inaan share garayno waxyaabaha dhacaya, si iyaguna ogaadaan inaan ka warhayno, inaan danaynayno, inaan dacmi siinayno, support siinayno insha allah. markaas saddexdaa wax aan walaalaheen insha allah tarno way aakhir wax kasta oo la isweydiin doonaa. halkan waxaan ku daray 2 malgacadood oo yogurtka dabiiciga ah. yogurtku jirka wuxuu ka dhigaa soft, naacim, jileec buu ka dhigaa, marka aad buu u fiican yahay. marka saddex kala duwan mask weeye. malab yarna waan ku darayaa. mid waxaan ku darnay turmeric, kharquumkii huruudi, midna waxaan ku darnay liin dhanaan yar, midna yogurtkan iyo malabka. markaas ku walaaqdid maskigaagu waa diyaar insha allah. waxaan jeclaanayaa insha allah inaad isku daydiin maskiyada kala duwan aan idiin soo dhigo. waxaad faa'iido ka aragtiin ii sheegtiin.